daawadayaal ku soo dhawaada war degdeg ah oo ka dhacay magaalada London oo isagu 4 nin oo Soomaaliya lagu weeraray isla markaana mid kamid uu dhintay 3 kamidna ay dhigeen dhaawac iyadoo mid kamid 3 dhaawacayna uu dhaawaciisu halis yahay 3 nin 4 nin oo Soomaalida ayaa la sheegay in lagu weeraray iyagoo jooga meel kamid ah galbeedka London meel maqaayada oo shiishada iyo maqaayad Soomaaliyeed ah halkaas oo ay groupka soo weerareen oo halkaasina ay weeraro weyn ugu geysteen ninka dhintay ayaa magaciisa lagu sheegay in la yiraahdo Ismaaciil Cabdullaahi Sugaal iyo ninka kale oo ay ilmaadeen rumahayn oo leeyahay Maxamed Cabdi Sugaal isaguna waxa kale oo dhaawac isaguna inay abtu yihiin oo leeyahay Maxamed Axmed iyo waliba nin kale oo isaguna la socday afartaas nin ayaa dhaawac si qabsaday mid kamid ugu geeriyooday mid kamidna xaaladiisu Faris iyo rasiigu jalsay noo sheegay dhakhaatiirta anagoo ku sugan dhakhtarka weyn ee ku yaala Central London ama bartamaha magaalada London ee St Mary loo yaqaan degmada Paddington sida la sheegayna booliisku waxay noo sheegeen dadkii dhibaatada geystay ay laba kamid ay gacanta ku hayaan oo soo qabteen inta kalena lagu raad joogo helada halkaas joogtay iyagu ku sugnaayo dad fara badan ay dhakhtarka joogeen ayaa waxa noo suurtagelin ama ay ka cudur daarteen inay wax hadal bixiyaan iyagoo sheegay inay ku jiraan xilli naxdina oo ay shoogsan yihiin wixii ka dambeeya ka soo kordha warkaas ayaan dib loo soo socodsiin doonaa waa runtii arrin naxariis darro Axmed Cawil Ismaaciil Somsa TV London